dawladani waa dawlad dhacaysa ninkan madaxweynaha farmaajo wuxuu ku fashilmay dalkiisii waadigii ogaa daraa toole in muxuu ahaa lagaga qayliyo baarlamaanka lagaga qayliyo dawlad dhacaysa waxa haboon in la sugo maxaa lagu ordaya 4 bilood baa ninkan u hadhay hadduu soo noqdo la xaal hadduu isaga de nasiibkiisa ilaahay siiyo oo madaxweyne ku soo noqdo laakiin madaxweyne 4 bilood anu waxaan u arkaa in muxuu ahaa Soomaaliland dawladeedu qayb ka noqotay farmaajo campaignkiisii uu dawladnimada ku ololihiisii doorashada ay because ninkani isaga oo dadkiisii ku kacsan yihiin oo dawlad goboleedyadiisii ka maqan yihiin oo dagaalo kale ku socdaan gudihiisii wadankiisii gudihiisii ka socdaan ayaa inagu leenahay xeerba waxba yaa fulinaya hadduu ka tago yaa fulinaya waxa iyaga kula heshiisan yaa fulinaya la kale waxyaabaha dadka ka yaabi waxa weeyaan iyayna dhexdhexaadinaya Ethiopia lagu leeyahay bayna dhexdhexaadinaysa Ethiopia has a vested interest dan gaar ah ay u leedahay Soomaaliya iyo Somaliland oo la og yahay oo cad Somaliland waxaan u soo sameynaysaa sida la sheegayo waxa weeyaan portka saylac oo Ethiopia interested ku tahay in ay la wareegto bahalkiina maxaa la yiraahdaa farmaajina uu saxeexayba inuu siinayo ayaa lagu soo maldahaya this is a conspiracy bay dadka qaar oran karaan laakiin tii Somaliland waxa weeyaan in ay sugto inta ay Soomaaliya dawlad hagaagsan ay ka dhalanayso hadduu de farmaajo soo noqdana isaga wax lala xaalo haddii kalena waa in la sugo xilligan oo xilligii kala guurka oo saxiixiisu informants aan shaqaynaynin in la yiraahdo hadalaan la galayna waxa weeyaan waxa siinaysa lifeline ama waxaad u turtay maartay waxaad ka caawinaysaa his election